السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Somali Trading Community waxay noo socday course-keeni intermediate to professional course casharkani waxa uu noqon doonaa casharkeeni shanaad. waxaanu kaga hadli doonaa demand and supply zone noocyadooda iyo erey bixinahooda iyo sidoo kale tusaalayaal aynu ku qaadan doono. demand and supply-ga dhimaanka ayaynu ka horeyn doonaa oo laba qaybood ah iyo supply-ga oo isna laba qaybood ah kadibna example isku filan ayaynu runtii ka bixin doonaa. Okay, marka hore waxa loo yaqaano demand and supply zone concept ahaan waxa weeyaan meesha macna suuqu sidiisaba inta badan waxa uu sameystaa ama suuqan laba kooxood oo waaweyn ayaa inta badan ku hirdamaya. labada kooxood ee ku hirdamaya runtii waxa weeyaan waa buyers iyo sellers. buyers iyo sellers ka suuqa ku hirdamaya macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay marka ay doonayaan buyers inay suuqa ka haystaan oo ay doonayaan inay kor u kaxeeyaan waa inay helaan sellers suuqa iska iibinaya si ay kor suuqa ugu dhaqaajiyaan. waa inay helaan halkan sellers suuqa kor ka keenay oo iska iibinaya kadib ay buyers ku galayaan. sidoo kale markay doonayaan inay sellers ku suuqa la wareegaan waa inay iyaguna helaan sellers ama buyers suuqa kor soo waday oo doonaya inay suuqa ka baxaan ama iska iibinayaan. macna bar kulankaas ayay runtii marka orderka oo dhan laga fulinaya. tusaale ahaan waxaan leenahay hadda meesha sare waa maxay waa area ay fadhiyaan sellers oo waxay doonayaan suuqa inay ka gataan. macna sellers baa ku diyaarsan sellerskaas waxay doonayaan suuqa marka uu halka yimaado price-ku inay gataan. halkan hoosena waxa jooga runtii buyers baa jooga ama waa demand zone-ki. marka price-ku labadaas u dhaxayn doona suuqa kor buu tagi doonaa waxa uu tagayaa buyers ka bartanka ka xaysanaya. halkan markay buyers ka kaxeeyaan suuqa muxuu aadayaa buy buu aadayaa then halkaas sellerski baa jooga sellerski suuqi maxay ku sameynayaan inay soo gataan. so waxa meesha ka baxaya marka buyerski hadana halkan sellerski baa suuqa kaga baxaya soo watay waa ka baxaya. markay sellerskaasi suuqa ka baxaan maxaa sameynaya buyerski baa halkan hoose ka soo gadanaya hadana sellerski baa ka baxaya buyerski baa soo gadanaya ilaa maanta suuqu wuxuu dhaxaynaya sidaas uu ku soconaya. laakiin concept-kaasi waa idea-da guud ee suuqa ku dhisan yahay laakiin de macnaheedu maaha suuqu sida qurux badan buu high iyo low support resistance ku dhaxaynaya. muxuu sameynaya halkan markuu sameynaya impulsive correction de wuxuu ku soconaya structure buu ku soconaya oo dhaqaaqyada suuqu asa structure bay ku soconayaan macnaheedu way iska yaacayaan maaha way iska yaacayaan maaha structure bay ku soconayaan oo trendy camal ay ku soconayaan sidoo kale suuqu ku soconaya hadana down trend buu soo sameysanaya saas kale soo soconaya then meelahan kala wareegaya saas u soconaya ilaa maanta suuqu saas u soconaya. marka concept runtii saas u dhismayay maaha laakiin dhaqaaq baa cararay iyo dhaqaaq baa meel maray runtii maaha. haddii saa la sameyn lahaa qofku meel halkaa hoose suuqa laga soo geli lahaa halkaas sarena suuqa waa laga wada bixi lahaa. marka intaas runtii price-ku u soconaya kaasuma marna kor u kacaya marna hoos u kacaya. lacaguhuna inta badan de price cayman baa lagu celceliyaa marmar dalka dhaqaalihiisu ama kor isku bedela ama hoos isku bedela mooyaane end of the day hadaad tagto hadaad imka day tagto lacagta geyso meel cayman baad arkaysaa inuu suuqu u dhaxeeyo ku warwareegayo. okay haddaba waxaynu ka horeynaa qaybta okay waxaynu iska saarnaa horti tusaale ku bixinaynay. okay waxaynu ka horeyn doonaa demand zone-ka. demand zone-iska laba qaybood baynu qaybin doonaa. labada qaybood aynu qaybinna waa maxay labada qaybood aynu demand zone-ka qaybin doonaa waxay noqon doonaan okay demand zone-ka waxaynu qaybin doonaa okay demand zone-ka waxaynu qaybin doonaa laba nooc ayuu u sameysmaa. labada nooc u sameysmaa waa nooca koobaad oo u sameysmaa drop base rally iyo nooca labaad oo u sameysmaa rally base rally. marka inta badan ka sare ee drop base rally-gu wuxuu ku sameysmaa suuqa reversal-ka halka kan dambana uu ku sameysmo suuqa continuation-ka. tusaale ahaan waxaan leenahay suuq baa down trend ku soo socday wada suuqa sida ku muuqata suuqani muxuu ku soo socday down trend buu ku soo socday. okay suuqa down trend-ka ku soo socday muxuu soo sameystay lower low lower high then lower low buu sameystay then lower high-gii u dambeeyay la kala wareejiyo suuq up trend buu isku rogay. suuqa up trend-ki isku rogay markaynu leenahay drop waxaynu u jeednaa waa daadasho. macna markaad kelmadda drop isticmaalayno daadashaynu u jeednaa. base markaynu isticmaalayna waa meel suuqu ku hakaday oo ku yaranasta laba kandal saddex kandal maybe mararka qaar hal kandal noqon karta ayaynu u jeednaa. okay rally-na maxaynu u jeednaa rally-na concept ahaan waxaynu u jeednaa suuqu wuxuu sameystay dhaqaaq baya. so markay intaasi sameysmaan meeshaas waxay noqonaysaa demand zone
meesha momentumka suuqu ka bilowday waxay automatically isugu bedeli doontaa demand zone bay isku bedeli doontaa oo waxaynu la baxaynaa magaca demand zone-ka marka uu suuqu ku soo noqdana macnaheedu waxay ka dhigan tahay fursad baaya ayaynu ka raadin doonaa inagoo de conceptkeena kale iyo waxyaabaheena kale oo dhanna insha Allah cilmigeena kale la kaashan doona okay waa nooca koobaad ee demand zone ku sameeyso tusaalihiisana waa isla arki doona nooca labaad ee demand zone ku sameeyso waxa weeyaan waa rally base rally suuq ayaa ku soconayay already continuation ku socday oo buy u socday suuqa bayga u socday muxuu sameystay okay suuqa bayga u socday wuxuu sameystay halkan rally baa ku jira oo macna bay buu suuqa ku socday base oo waa yara nastay dan rally-gii buu iskaga sii socday intaasi markay dhacdo lama doonayo inaad suuqi taado trade baan sugaya trade-kii halkaa hoosaan ku sugaya maaha trade-kiina hadda area-da dhaxa laga yaabaa inuu ka dhaqaaqo area-da dhaxu ka dhaqaaqayaa waa demand zone-ka haddaad fursad ka heshana trade-kaaga waad ka fulinaysaa okay bal tusaalayaal isla eegna waxaynu tegaynaa suuq baaya okay hadda suuq baaya ayaynu raadin doonaa kadibna examples uu leeyahay isla fiirinta hadda suuqan already waa ka heli karana demand zone waa ku jiraan laakiin wuxuu u badan yahay already suuqan overall trendigiisu waa maxay waa down trend maadaama overall trendigiisu down trend yahay sheekh way ku adkaanaysaa inaad demand zone sax aad qabsato sababtoo ah suuqa demand zone-ka laga raadinayo waxa kow ah inuu suuqaasi sameysanayo uptrend okay hadda suuqan u fiirso hadda suuqan down trend baa socday then uptrend buu isku rogay intaas suuq wuxuu ku socday uptrend ayuu runtii ku socdaa suuqa uptrend-ka ku socda ee hoosta ka soo bilowday kor ka tagay waxaanu ka fiirinaynaa demand zone kala duwan oo fara badan baynu ka helaynaa hadda already kan baa ugu horeeya suuqan halkan muxuu ka sameeyay down trend-kii waa kala rogay meesha waxaad arkaysaa down trend-kaagi inuu suuqu kala wareegay maadaama down trend-keeni kala wareegay waxaynu leenahay drop waa daadashadan koowaad base-na waa meeshan suuqu uu ku istaagay halkaasi waxaynoo ahayd demand zone bay inoo ahayd haddii uu inugu soo noqon lahaa oo inoo iman lahaa waxay ka dhigan tahay inaynu fursad ka gelin lahayn laakiin already laynooma imane suuq waa iska sii socday khasabna maaha demand zone iyo supply zone kasta in lagu yimaado oo lagaaga dhaqaaqo ama se lagugu soo noqdo sax maaha maybe mararka dambe lagu soo noqonayaa oo ama la jebinaya ama laga reaction garaynaya okay mid kale aynu eegno halkan waxaa ku jira demand zone this one waa demand zone maxaynu ku cadeynaa demand zone yahay waa drop base rally base rally baa ka dhaqaaqay waa demand zone keena markii lagu soo noqday reaction baa laga sameeyay oo waa laga react gareeyay okay another one isla isagii haddaad saa u jiido oo halkiisan waxaa ku jira runtii mid kale kan waxaa ku jira mid kale oo isla demand zone waxaad arkaysaa suuqu waa ka dhaqaaqay base buu samaystay rally buu samaystay markii uu kugu soo noqday isagana waa ka react gareeyay halkan maxaa ku jira demand zone kale ku jira hadaad meesha u fiirsato okay meesha waxa ku jira demand zone baa ku jira areadaas demand zone yar baa ku jira halkan hoose maxaa ku jira demand zone baa ku jira isla kana oo marar badan runtii multi dhowr jeer baa lagu soo noqday oo waxa ka dhacay dhowr jeer in lagu soo noqdo Chinese meesha laga sameeyay okay another one halkan maxaa ku jira demand zone baa ku jira meesha maxaa ku jira demand zone baa ku jira marka in basically inaad magacan taqaano dhaqaaqan drop meeshan waa base meeshan waa rally waa basically waa macluumaad guud oo la doonayo inaad fahanto laakiin ogow demand zone-ka concept-kiisa guud markaynu ka nimaadno inta suuqu meesha lagu kala wareejinayo buy iyo sell-ka ay ku sugayaan waxa laga doonayaa ishaadu waxay la qabsan karaysaa oo asa intermediate hadda laga doonayo inaad fahansan tahay demand zone markaad qabsanayso maxaad qabsanaysaa waxaad qabsanaysaa oo kuu soo dhaweynaysa aragtidaada meel dhaqaaq xoogi ka bilowday macnaha tusaale ahaan meeshan buy baa ka bilowday meeshan move buy ka bilowday move-ka buy-ga ah waxa base u ah in uu jabiyo levelkii ka soo horjeeday waa kana inuu meesha jabiyo break of structure dhaco break of structure kaasi marka uu dhaco waa meeshaas waa ku demand zone nooc ma demand zone kaasi waa drop base rally then marka uu kugu soo noqdo waad ka react garaynaysaa inagoo de hadhowna la kaashan doona cilmigeeni kale iyo rulisgeeni kale iyo wixii oo dhan ayna sugayaan oo aysan macnaheedu ahayn suuqa demand zone baa la helay supply zone baa la helay trade laguma galo ama se trade laguma qaato okay marka noocaasi waa nooca koobaad ama waa nooca demand zone-nadu ay u qaybsamaan waana nooca marar badan aynu runtii u isticmaalno oo demand zone-ka aynu runtii ku isticmaali doono okay waxaan sidoo kale samayn doonaa oo iyadana runtii casharkeena inagu jirta supply zonesku maxay noqonayaa supply zonesku waa kuwa ka soo horjeeda hadda demand zone maadaama aynu ka hadalnay supply zone maxay noqonaysaa supply zonesku waxay noqonayaan in
marka suuqa salarisku ay gelayaan ama si suuqa selka loo kaxaynayo maxaa base u ah waxaa base u ah labadan qodob suuqa supply zone haddaad maqasho laba nooc buu noqdaa labada nooc noqdaa waa maxay labada nooc ee supply zone ku noqdaa waxa weeyaan nooca koobaad waa rally base drop waa suuq buy ku socday oo nastay kadibna daatay tusaale ahaan ka hadalkan inta badan waa reversalka waa rally ayuu samaystay oo buy buu ku socday base buu samaystay then drop buu soo samaystay waa soo daatay noocaas waxaa loo yaqaanaa rally base drop noociisa labaadna waa suuq continuation oo waa suuq drop ku socday yara nastay kadibna sii daatay oo drop sii sameeyay markuu areada kugu soo noqdo meeshaas ka soo galaysa hada kan oo kale maxaynu leenahay markuu de basekeena inagu soo noqdo inuu tradekeena fulinayna maadaama meeshaas sabalaysoon tahay halkaas inuu trade ka soo qaadanayna noocanna maxaynu leenahay halkaas aynu ku sugaynaa maya markuu basekeena ku soo noqdo confirmationskeena iyo ruleski baynu ka sugaynaa halkaas inuu isagana orderkiisa ka soo fulinayna okay tusaalayaal hadda aynu eegno hadda suuqan u fiirso hadda suuqan oo kale already fursado fiican buu abuurayay maxaa meeshan kaaga muuqda suuqan waa down trend maadaama suuqan down trend yahay ka saaro waxa ku jira pullbackan ku calaamadiyay meeshan maxaa ka muuqda meeshan waxaa ka muuqda chance baa ka muuqda chanceskaasi markaa waa noocma this one chanceskaasi waxa weeyaan suuq soo socday suuqa soo socday muxuu samaystay drop base kadibna drop buu sii samaystay markuu basekaaga suuqu kuugu soo noqdo waa meesha aad fursada ka gelayso ama se fursada ka sugayso dan one kan hadda u fiirso hadda meesha waxa ku jira haddii candlestick aan sii yarayn lower time frame-ka uu sii dego order block baa ku jira ama se waxa ku jira in ay demand zone meeshaasi supply zone ku tahay marka uu kuugu soo noqdo trade-kaagu meeshaas uu active ka yahay oo la doonayo ka soo qaadato kan hadda u fiirso waa clear drop base drop meesha maxaa ka muuqda drop base oo nasashadiya drop buu sii sameeyey marka uu kuugu soo noqday dan waa taabtay dan waa ka dhaqaaqay oo suuqu meesha waa ka dhaqaaqaya oo waa ka soconaya bal isagoo aynu eegno noociisa kale ee ah hadda kuwa aynu fiilnay waxay badan yihiin drop base drop waxaan doonayaa si fiican iskula aragno nooca ah rally base drop rally base drop inta badan wuxuu ku dhacaa suuqa reversalka oo suuqu meesha uu ka soo kala wareegay ayuu inta badan ka sameysmaa hadda haddaan dib u baxo suuqu meesha uu ka soo kala wareegay ayuu inta badan u dhaxaa hadda meeshan kale u fiirso hadda suuqan kale muxuu ku socday suuqan kale buy buu ku soo socday macna uptrend yar baa meeshan ka sameysmay uptrend ka yar ee meeshan ka sameysmay waa soo kala wareegay in lower time frame ka 1 hour iyo wixii lamid ah waa soo kala wareegay markuu 1 hour kii waxa soo kala wareega trend kani meesha waxa kugu jira waa rally oo dhaqaaqa kor u socday waa rally base waa meesha lagu nastay drop kina waa meesha laga daatay marka haddii aad halka qabsan lahayd oo areada suuqa u qabsan lahayd meeshaas areadaas waxa ay ka dhigan tahay waa meeshii order block ku noqonaysa ama meeshii supply zone ku noqonaysa suuqa markuu kugu soo noqdo chance-ka selka ayaad meesha ka fulin lahayd ay ka dhigan tahay adigoo de ruleska iyo cilmigeena kala la kaashanay marka guntii iyo gunaanadkii waxa weeyaan muhiimadda casharkan laga doonayo waxa weeyaan aad fahansantahay noocyada ay supply zone ku qaybsamaan iyo demand zone ku macna supply zone iyo demand zone labada nooc oo kala qaybsamaan iyo sidoo kale inaad fahansantahay marka aad doonayso inaad demand zone qabsato waa inuu ku sameeyaa break of structure maxaynu uga jeednaa de hore waxaynu uga soo hadalnay suuq up trend ama down trend suuqa markaad demand zone doonayso inaad qabsato waa inuu suuqu sameeyo waa inuu structure-kan ka horreeya jabiyo markuu structure-ka kuu jabiyo ee halkaa kuu jabiyo suuqaagu muxuu kusoo noqonaya demand zone buu kusoo noqonaya demand zone kusoo noqonaya ma kanba ma meelahan buu ka samaysmaya ma halkaas ka samaysmaya intaas dhexdu ka dhex samaysmaya marka meelaha ka hesho demand zone-kaagii oo halkaas kale demand zone-kaagii ka hesho waxay ka dhigan tahay trade-kaagii inaad meesha uga soo diyaar garoobayso adigoo ruleski kala fiirinaya haddii aad confirmation ka hesho trade-keeni kor baynu raacayna haddii sidoo kale uu samaysto down trend uu samaysanayana dee waa kan kasoo horjeedkiisoo ah suuq ku soconaya maxay down trend already u soconayay then meeshaasoo kale aynu ka helnay supply zone-keeni halkaas aynu trade-keena kasoo qaadanayna inta aynu sameynaa runtii waa intaas ee concept-ka laga doonayo marka demand zone ama supply zone ku noqdaba waxa base u noqon doona hadhow toole wax loo yaqaan order block waa maxay waa candle-ka aynu qabsanayno casharo gaar insha Allah kaga hadli doona order block iyo sidee loo refine gareeyo ama candle-ka ugu saxsan loo qabsado si asalka ugu yaraado waxaas oo waa ka hadli doona casharka waxa laga doonayaa fahansan tahay concept-ka demand and supply zone inta insha Allah casharkan cashar lamida isku arki doono. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.